السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال سو دوادا ومركلي يو انيغي ده ومركلي كلنكني حدا iyo Suleekh Cabdullaahi ku soo dhawaada barnaamij xiiso badan siina sheer gareeya Mustafa Cilmi adan ku salaamay walaalwana ka qaada salaanta soo dhawow barnaamijkana sheer gareeya maanta sidaan kor ku soo qoray waxyaabo fara badan baan ka hadli doonaa muddo dheer ba suuqeen dambeysay waan yar mashquulay shaqo iyo imtixaanaad iyo wax baan lahaa marka wixii dhacayay toddobaadyadaas oo dhan baan rabaa maanta inaan soo koobo inaga dabageeyo marka maamo aad baan ku soo dhaweynayaa deeqawa maxar aad وعليكم السلام walaal aad baan kaaga qaaday aadna waan ku soo dhaweynaya barnaamijka inoo share gareeya waxaan rabaa maanta wax badan inaynu ka wada hadalo subaxad xasan aadan ban in yar inoogu tuuraya mise lama jecel xasan aadan dadku waxay yiraahdeen heesaha naga daa heeso ma fiicna dadka qaarna waxay dhaan waa inoogu tuur marka dhinaca loo bato ma fiirinaya teeda kale heestu markay noqoto hees wadaniya sideedaba dadka dhan way dhageystaan heesaha wadaniga Soomaa inta wadaniinta way dhageysataa okay waan inoo daaraya marka xasan aadan iyo heesta 2018 gamima ya warde gamiye nalasha أحمد أدن كوسو دوينيا آدي أد بندمانتي ندين ودا السلام يا سعيد يوسف ورسمة وانكا قاد ولا أدن كوسو دوينيا نسيدو كاله دمان أصحابتها هالكان يقى السلام يسمى ودا كوبي كرو ويدا في قرال كنينتي بدنايد ياسمين أدبن ولا الكاقا قاد وان كوسو دوينيا دمان أصحابتها هادي أدبن ندين سو دوينيا maanta halkan waxaan ku casuumay kaliya asxaabta jecel nabad iyo nolol wixii diidan hadaba waxa la dhiguna yuna idinku karnay meeshaas kaga baxa halkaas ma naga jeeda qayb soo qorqoraya
oo nabad iyo nolol diida wixii nabad iyo nolol diida caawa uma baahnin nabad iyo nolol soo dhawaada nabad iyo nolol sii sheer gareeya wax badan baa rabaa caawa inaan idinla wadaago qodobo dhowraan rabaa inaan idinla wadaago idinla sheer gareeyo kow nabad iyo nolol diidka iyo dad badan oo ku dabalumay waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago waxaan rabaa inaan idinla wadaago maanta dad badan oo ku dabalumay nabad iyo nolol diid ama kooxaha daahir calasow iyo waxyaabaha ku kalifay siro yararoo hoosaan idinka hayaa waxaan kaloo rabaa inaan idinla wadaago madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda nabad iyo nolol sida u shaqayso waxaan kaloo rabaa marka inaan ka daba tago beeno toddobaadyadii lasoo dhaafay intii aan mashquulka ahaa hawada laysla dhex marayay waxaasoo dhan waan isku soo wada koobi doonaa marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan in yar baan dib inoogu dhigaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo sida ay u wada shaqeeyaan iyo xogo hoose oo aanadan badankiina ogeyn laakiinse aniga aan ogahay waxaan kaloo rabaa marka inaan ku hormaro nabad iyo nolol diid nabad iyo nolol yaa diidi kara halkaasa dhammaan dadku waxay usoo qorayaan nabad iyo nolol qof diidan nabad iyo nolol ma jiro qof kasta wuxuu doonayaa waa nabad iyo nolol laakiinse qofkii nabad iyo nolol diiday shaydaan baa duufsaday shaydaanka kuwa u duufsaday marka waxaan leenahay ilaahay horta shaydaanka ina iska naartaanba marka hore idinku boorinaynaa qofka hadduu shaydaanka iska naaro wax walba way u toosayaan laakiin hadduu shaydaanku wax fool xun uu qurux kaaga dhiga wax qurux badan baad moodaysaa waadna daba cararaysaa marka waxaan leeyahay dadka shaydaanku duufsaday dad badan baa wallaahi ku dabalumay run baan idiin sheegaya maanta waxaa rabaa halkan inaan ka xaqiijiyo runtii aniga ma jeceli dadka inaan dabagalo ama inaan qof wax uu isagu ka hadlay inaan ka daba hadlo hadday noqoto marka inaad maanta oo dhan qofbaa hebel baa sidan yidhi muxuu sidaa u yidhi hebel kalaa sidan yidhi muxuu sidaa adiga macno daraa kugu dhacayso waana wax runtii aad u baahan inaad adigu ogaato inaad ama isdifaacdo ama dad hadalkooda aad beenisaa waqtigoonba kaaga lumaya tusaale waxaa inoogu filan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo maanta dhan haddii wax la sheegayo maanta dhan haddii la caynayo maanta dhan haddii laga been abuuranayo maanta dhan wardad isku sheegaya madax ayaa intaa wax ka sheega oo caaya oo ka been abuurta ma u jawaabo mana la hadlo waayo shaqadiisa ma aha shaqadiisu meenu isdifaacaaba waa maya shaqadiisu waa inuu dalkan iyo dadkan u samato bixiyo oo uu wado wanaagsan iyo horumar uu u horseedo laakiin hadday noqoto qofbaa wax iga sheega waa inaan iska celiya qofbaa wax iga sheega waa inaan runta u sheega qofbaa wax iga sheega waa inaan xaqiijiya micno ma samaynayso nabad iyo nolol diidka waxyaabaha badana ay dowladda ku caayaan ku cambaareeyaan waxaa ka mid ah maxay uga hadli weyday waxaa maxay u hadlaysaa meesha shaqa u joogta hadal ma joogto dowladda marka waxaan rabaa maanta waxaasoo aan in badan ka aamusna inaan maanta waxyar ka idhaahdo waayo markaad aamusto beentii lagu celceliyo dad badan baa run moodaya waxyaabaha lagu celceliyay markay 2 toddobaadee lasoo dhaafay aan hawada ku kala maqnayn aan arkayay oo marba ishaydu ay qabanaysay waxaa ka mid ah dadaan macquul moodayay oo maanta macquul noqon waayey oo sharqiyadii shaydaan wasuusay ku dhacay dadaad idinku u taqaaneen dad magac leh inay yihiin oo sharqiyadii shaydaan wasuusay ku jira oo marka aan dabagal ku sameeyo raadiyay xaqiiqada soo ogaaday ay maanta iyagu ceeb dhex fadhiyaan oo wallaahi ummadii ay isku direen oo cid la'aan ay taagan yihiin oo qof taageeraya uusan jirin oo qof dhagaysanaya uusan jirin marka dadkaas waxaa ka mid ah Aamina Muuse Weheliye aniga waxa kama oran codkeedii intaan soo qaaday baan page-kayga soo galay waxaan ku dhahay maamada maxaa ku dhacay si xushmad leh ma caayin ma habaarin way qaldan tahay waa saxan tahay xuma oran qabiil bay caayaysay khaasatan ra-iisul wasaaraha qabiilkiisa caayaysay marka qabiil markaan anigu wax ka sheegayo waxaan wax ka sheegay aniga ayaa wax iska sheegay aniga ayaa iscaayay markaan qabiil caayo wax ka sheegayo ma rabo markaa Aamina hadalkeedii inaan sii falanqeeyo oo aan ku dheeraado laakiin waxaan rabaa hadalka beenta ah ee ay dadka u sheegayso inaan beeniyo buriyo hadalka beenta ay dadka u sheegayso aan rabo inaan buriyo waxay tahay horta kow waxay tiri ra-iisul wasaaraha qabiilkiisa igu soo dudaday aniga qabiilku ugu soo dudaday wax kale waxba igama gelin ummadda Soomaaliyeed baa ra-iisul wasaaraha jecel haddii ummadii Soomaaliyeed kugu kacday micnaheeda ma aha qabiilkii ra-iisul wasaaraha kugu kacay laakiin ummadii Soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha jecel aniga kowa ka aha waa kugu kacaya ha waayo aniga dawladda waan taageera qof kasta oo wax wanaagsan qabtana waan taageera
dawlad markaan leeyahay dawladii waa dad isu tagay oo cid walba leh ra'iisul wasaare madaxweyne baarlamaan wasiiro intaas qof kasto wax wanaagsan qabtaa wuu iiga duwan yahay kuwa kale wasiirada waan kala aqaanaa yaa waxii qabtay yaan waxii qaban kii waxii qabtay iyo kii kale waan kala garanaya qabiilkiisana wax iga galay malaha laakiin waan ammaanaya markuu wax wanaagsan ay qabto si uu talaabada u laba jibaaro oo wax intii hore ka badan uu iigu qabto marka qabiilka ra'iisul wasaaraha caay horta inaad tiraahdo waa ku qaldan tahay ra'iisul wasaaraha qabiilkiisa ku jira honeymoon ama waxay galeen toddobabax ku jira inaad tirahdana waad ku qaldan tahay marraba marka taa inaan ku fogaado wax badan ka odhan maayo adiga un ayaa isku ceebeeyey oo bulshadii kaga dhex baxay waxaad ku ogaanaysaa dadka aad leedahay way igu kaceen mahamud ra'iisul wasaaraha qabiilkiisa waa Soomaali oo aan anigu ku jiro waana kugu kacaya qof wanaagsan oo wax wanaagsan ii qabtay qofkii ku xadgudbo waan ku kacaya hadalkaan u socdaa wuxuu yahay marka waxay tiri qabiilka waxaad ka sheegtay horta adiga iyo ilaahay iyo ummadaas aad falgaadeysay ayuu idin dhex yaala idinmana dhex galayo laakiinse hadalka aad tiri xafiiska ra'iisul wasaaraha intuu ila soo xariiray ayaa wixii ugu dhahay $200 mise bawn bay tiri 300 wax noocaasa inoogu shaqee waan ka diiday waayo haddaad rabto inaad run sheegto waxaad noo keeni lahayd wax cad marka lagula soo hadlayo telefoon baa lagugula hadlayay corruption cad inay taad u jeeday waa data qof dalkiisa iyo dadkiisa ka nacayo daadan adigu lacagta doonan inoo raadsanin sidan anigu soo wado iminka hadalan soo wadaaba noocaas ah waa lagu soo wacay waxa lagu yiri lacag noogu shaqee okay lacag noogu shaqee markii lagu yiri mobile bad ku hadlaysay casri baa la joogaa codka maxaad u duubi weyday oo notice weyday oo dhan weyday waa tana iyadoo la soo hadlay ama waa kana qoraalkii la soo qoray oo lagu yiri lacagtaas noogu shaqee been cad inaad sheegayso waxa tiri dadka amaana dawladda lacag baa la siiyaa Soomaali Maxamed baa amaanaysa lacagta Soomaali Maxamed xagee looga keenaa mideeda kale hadii anaga lacagna la siinayo IMF marka intixaamaysay dawladda lacagta anagana la siinayo waa lagu la xisaabtamay waxa la oran lahaa lacagtaas aad ku qasaaraysan dad idin taageera lacagtaasi waa corruption waayo ma aha dad dawladda ugu shaqeeya Soomad garan marka dad baa lacag la siiyaa marka adiga horta waad is diltay oo istoogatay oo dhulka baad isgelisay dad badan baan arkayo iska ka daba toogtay runtii waxa ku jira ninaan falanqayntiisa siyaasadda aad u jeclaay aad u taageeri jiray Cali Xarre la yiraahdo Cali Xarre wuxuu iska ahaa nin dhexdhexaad ah wuxuu ahaa nin siyaasadda maaliba meesha ka qalloocdo ka kaftama waa wax caadi ah taas dadka dhan baa kugu jeclaa dadka dhan baa kugu taageeri jiray maanta waxaan arkay adiga oo hadalkii Aamina Muuse weheliye ka daba qaatay Cali Xarre adoo hadalkii Aamina Muuse weheliye ka daba qaatay oo dad raacay sidii si lamidun bay maradu kaaga dhacaysaa dadkii daawan jiray kaftankaaga siyaasadana ogow maanta inay kuugu dambayso kaligaana ma aha wallahi waxaan u sheegayaa dadka hore isugu sheegi jiray dad magac leh inay yihiin dad wariyayaal inay yihiin hadii ay ra'iisul wasaaraha ku khaldamaan ra'iisul wasaaraha maanta haddaan halka ku soo qoro iyo shakhsi kale keeba taageeraysan 100,000 oo qof ba isla markiiba waxa laga yaabaa in ra'iisul wasaaraha uu codeyso ma aha qabiilkiisa waa Soomaali Maxamed weeyaan waa Soomaali Maxamed haddaad marka aad ka been abuurato oo aad tiraahdo xafiiskiisa dad lagu shaqaalaysiyo si dawladda loogu ammaano ogow ummadii Soomaaliyeed iyo adigu inaad kala dhimateen annaga ayaa cadaynayna waxa tiri Cali Xarre maanta dad soo tahriibay buu yiri oo aan waxba garanaynin dad soo tahriibay oo aan waxba garanaynin ayaa propagandaha beenta dawladda u fidiya adigu wad soo tahriibtay aniguna waan soo tahriibay oo ma diidani Aamina Muuse way tahriibtay ama ku gal dal qurba qaxooti ama ku gal bug ama ku gal baasaboor dad kale ama ku gal isxambaar iyo sponsor wax kasta ama badamar tahriib qurbe waxaan tahriibayn lagu yimaado ama sponsor lagu keeno adiga ama hay'ad qaxoonti ku soo qaado adiga ama meel kale laga soo qaado waa ciyaalkii buu yiri ku xirnaan jiray maxaa la dhahaa Liibiya ku xirnaan jiray ciyaalka Liibiya ku xirnaan jiray adigu maxaad isdhaantaan adiga ba qaxoonti baad ku tahay Mareykanka anigana sidaas la mid ah qaxoonti baan ku ahay Mareykanka ya kabana isma dheerin other full time baan shaqeeya full time glassna waan aadaa Soomaaliya maanta aniga waxa waajib ugu ah askarta sharafta iyo karaamada maanta ummadda Soomaaliyeed u soo hoysay mushaharka aan qaato $10 inaan bil walba isaga gooyo oo aan ku diro akoonka dawladda
halkana aanu la taagnaado taageeradooda iyo ammaantooda laakiinse beentiina aan maanta soo ogaaday aan rabo inaan maanta dadka kunka qof ku dhaweey daawanayaan u sheego waxay tahay aamina muuse intay maqashay hadalkii daahir cali soowe ahaa dad baa lacag ay siisaa dawladdu ayay dhug xafiiskii ra'iisul wasaaraha garaacday waxay tiri aniga ka caansan dadkan aniga ka magac dheer dadkan aniga BBC u shaqayn jiray aniga la yaqaana aniga ay ahayd inaad siisan lacagta dadka ku siisaan anagu cid lacag lama siinaa la yiri hadaa dawladdaada iyo dalkaaga aad free ugu shaqaynayso aad free fikir ku siinayso aad free ku taageerayso aad free wixii runa ku sheegayso welcome hadii kale goodbye markaasay propaganda iyo been la soo istaagtay Facebook iyo groupkii daahir cali soo ay ku biirto laakiin marada ka dhacday waxba maysan helin marada un baa iska riday cali xarle maanta wadadii buu hayay asagana wallahi kaftankaaga siyaasadda dadkii daawan jiray waanu fiirsaday waana qiimeeyay tiradii dadku daawan jirtay isla markiiba cid ku cayda iyo cid ka baxda mooyaane wax kale waad weyday waayo Soomaali ayadaa jecel nabad iyo nolol iyagaana ka jecel nabad iyo nolol laakiin wixii nabad iyo nolol diida ee jidka nabad iyo nolol ka leexda ogow ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay ka hayso oo ay necbaanayso marka dadka isku sheegaya magac baan leenahay BBC baan u shaqayn jiray war BBC waa ta Soomaali halka dhigtay weeye BBC waa midda Soomaali madaxa isu gelisay maanta inta xafiiska ra'iisul wasaaraha inta wacdeen ba waxa leedihiin ciyaal yar oo tahriibay oo maalto ku xidhnaan jiray ayaad siisan lacago qaalub balaaba garanaynin anaga lacagtana si anaga u qalanay anaga ahaan jirnay wareeyal khatar ah anaga ayaa ka soo shaqayn jirnay idaacada hebele anaga ayaana la garanayaa nala dhageysanaya anaga sidan hana la sii lacag laadin ma siinayaa la yiri nama siinaysan soo maaha waayahay ween propaganda iyo been idin gelina hawada idinka ayaa is ceebeeyay ilaahayna wuu og yahay anagana waan is ognahay dawladana waynu ogtahay shilin qof la siiya inuusan dawladda amaanin shilin anaga inaan shilinkeena ku taageerno diyaaro ah annaga ayaa shilinkeena inaan ku taageerno diyaaro ah annaga ayaa ciidanka maanta sharafteena kor u qaadaya iyagoo aanan mushahar qaadanaynin diyaaro ah mushaharkeena inaan shilin uga goyno kii aan mushahar qaadan Soomaha kii aan shaqayn Soomaha kii meel qaxootiga shooga Soomaha kii niyadda un ka taageersan Soomaha wixii fikira iyo wixii ra'yi iyo wixii hadala iyo wixii tala oo uu siin karo free buu ku siinaya kii lacag ugu dari karaana wuu ugu darayaa laakiinse waraabayaasha soo baxay ilma BBC cali xariya amina muuse weheliye waraabayaal baad noqoteen Soomaalina waad ka dhimateen idinkaana is ceebeeyay xukuumadda nabad iyo nolol inaad maanta propaganda ka faafisaan saqiirka laba jirka ayaa garanaya beenta aad ka sheegaysaan iyo inaysan musuq iyo laaluush midna qaadan maanta dad qof ku tiraahdo maxaad u aragtaa ra'iisul wasaaraha والله بالله بين دين مشيدي ما ندود ويل Soomaaliyan meelkooda shaqeynayna waxaan ku oray wuxuu adigu ayaamii dhawada siyaasadda aad u cakarneed bay hayda mooshinka iyo waxyaabaha si socdeen والله بالله waa ku wareeray buu ra'iisul wasaaraha maxay maxaa ku wareertan ku dhax maxaa ku aragtay ma garanayo ma waxaas leedahay waa nin musuq ana si caadi ah waraysanay ima yaqaan anigu ma aqaan meel baan ku kulanay ma waxaad u malaynaysaa inuu yahay nin musuq oo yacni dalkan inuu u soo shaqo tagay sidii aan uga aragnay siyaasiyiin hore ma saasaad u malaynaysaa wallahi ma aha nin lacag qaata okay waayahay ma waxa u malaynaysaa inuu yahay nin dana shisheeye iyo dalal shisheeye u shaqeeyo oo dalka khiyaamay wallahi ma khiyaamo anigu kuma garanayo kuma arkin hada waayahay maxaa ku haysataayo asleedahay ma fahmin maxaa u leedahay ma aqaan waa ku wareeray ma fahmo siyaasadiis marka ma inaad taageerto oo wax wanaagsan uu sameeynaya ayaa kula gudboon mise inaad tiraahdo waxaas ku qalday wallahi wuxuu ku qaldan yahay ma garanayo hadda marka maxaad ku diidaysaa dadkiinan diidan marka waxaad ku diidaan sababtoo ah reer hebel buu yahay aamina muuse heliyaan cadaysay sababtoo ah waa reer hebel waa qabiil aad u yar xaqaygii buu haystaa bay tir xaqaygii hadda xaqaaba dhac xaqeedu iyada yaas xaqaas iyada yaa xaq u siiyay markay leedahay ra'iisul wasaaraha kursiga ugu fadhiya xaqaygii buu haystaa ra'iisul wasaaruhu waa shaqaale mushaharka uu isagu qaatana wuxuu ku dhisay waxa uu ku bixiyaa arday iska bixin kari weyday fiigii iskuulka jaamacadda ardayda Baydhabo ra'iisul wasaaruhu 100,000 oo arday oo dugsi sare ka baxay oo reer Baydhabo marxaatibaad ka wadatiin in uu mushaharkiisa bil walba uu uga gooyo inay iskaga bixiyaan jaamacadda magaciisa ayaa ku qoran jaamacadda ku taala Baydhabo Khayra University of Baydhabo waadna aragteen taas cidina looga sheekayn maayo
maanta marka dadku inay yiraahdaan khayraad dad lacag wuxuu ku siinayaa si ay u amaanaan si ay u barabaqad war anaga ilaahay baana diray qof kasta oo daacada qalbigiisa nadiif yahay wanaag doonaya ka daalay dhibaato 30 sano ku soo jirtay damiirkiisana uu nool yahay lacag kuma iibsado waxyaabaha noocaas ilaahay baana ka magan galay in aan dawladeeda ugu shaqeeyo ama aan u amaano lacag ay siiso darteeda teeda kale waxaad ku ogaanaysaan dad yowgan le maalina lacag baa la bixiyaa maalin loo bixi 24 ka saac lacagta hadalay anaga ma lacag baan hadalaynaa 24 ka saac dadkan nabad iyo nololdiidka ee lacagta hadalaya ogaada mar walba waxa ay ku soo celceliyaan oo ay yiraahdaan lacag baa la bixiyaa teeda kale waxaad ku arkaysaa waa switch shalay toole iyagoo amaanayay dawladdiiba haddana waxaad arkaysaa iyagoo ka soo horjeeda wax wanaagsan bay dawladdu sameynaysaa haddana wixii xumaaba loo leexanaya sababtoo ah waxa weeyaan aniga lacag ma siin maxaa iga galay meeshii shilinku iigu jiro ayaan maraya laakiin aniga ilaa maanta ilaa maalinan ogahay saasaan u dhinac taaganahay sidaasaan u dhinac taaganahay wax yar baan rabaa marka inaan dib ugu noqdo maxaa aniga igu kalifay dawladda inaan taageero anigoo full time shaqaynayo anigoo full time school aadayo anigoo waqti u haynin maxaa igu kalifay wax yar baan idinka sheegi doonaa laakiinse waxa kaloo aan rabaa inaan in yar idinka sheego taa waan soo noqon doonaa wax yar baan rabaa inaan idinka sheego dadka nabad iyo nolol diidka ah in ay xumaanta mooyaane wanaag indhahoodu qabanin miyaad aragteen qof dawladda ka soo horjeeda ama nabad iyo nolol diid ah oo amaanaya ciidamada qabtay lacagta 10 milyan ee laga soo dejiyay airportka hal shakhsi oo dawladda ku kacsanaa hal shakhsi oo ku amaanaya ma aragteen kunkiina qof ay daawanaysa hal shakhsi oo amaanaya miyaad aragteen waa maya halka maxaa kaaga cad marka halka maxaa kaaga cad nabad iyo nolol diid shaydaanka wadadii u jeexay bay sitaan wadadii shaydaanku u jeexay bay marayaan meel kalena ma arki karaan indha kala malaha dawladdan iyay jirin corruption ku ha socdo maxay corruption-ka ula dagaalamaysaa naciibkoodu waa maxaa corruption-ka loo joojinaya corruption bay doonayaan dawlad la'aan bay doonayaan dhiig daatay doonayaan xumaan bay doonayaan wanaag dhan indhahooda ma qabtaan maxay u amaani waayeen maxay abaalmarin xitaa kaliya dad sharaf leh bay iska dhigayaan ayaga dad wanaag doonaya magaca ay isticmaalaan Soomaalinimadii way baabaaday Soomaalinimadii khayr iyo farmaajo meel uga dhacay Soomaalinimadii iyo dawladnimadii sidan idinka Soomaalinimo iyo wanaag hadaa doonaysaan ciidanka ma siisaan shilin ma siisaan akoonkooda ma kuridaan waa maya ciidanka shaqadii ay qabteen ma ku amaanteen kaliya ma tirahdeen braawo shaqadaasi waa shaqo loo baahnaa ciidanka waxaas loo sameeyo weynaan sidaa yeelaa weynaan ciidanka taageerna iyagoo dhahaya wali ma aragteen maya kuma arkaysid meel ay ku soo qorayaan xitaa ma arkaysid akoontiyadan ciidanka lacag loogu daro waa maya waa jiroolayaal waa shayaadiin weeyaan waa shayaadiin waxaan soo noqonayaa marka waxaan soo noqonayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo noqonaya oo dadkana ay ku waashan qabaa'iladooda oo mar walba ay yiraahdaan qabiilkiisa taageera qabiil baa lagu taageeraa oo sidaad hore uga maqasheen aamina muuse horna aan idinku sheegay ra'iisul wasaaraha hal shakhsi baan ka garanaya baan mulanaya waxa isku qabiil yihiin maalmihii uu cusbaa uu taageeri jiray nabad iyo nolol diidkii waxay ku bilaabeen qabyaaladaysta tahay because ra'iisul wasaaraha isku qabiil baatiin sida awgeed wad amaanaysa Soomaha wiilkii isla markiiba waa la kala fureeyay waxa la yiri dawladda isagoo ra'iisul wasaarihii iyo dawladdii iyo xukuumaddiiba aflagaadeeniyo soo gali war maxaa kugu dhacay dadkii baa waxay igu yiraahdeen qabyaaladaysta oo marka maxaa ku helay dewan mucaaradaya markaas halka shakhsi baan wax ku qabiilka madaxweynaha Soomaha ma ahan dad siyaasadeedba ma galaan siyaasad ma taageeraan ma ka soo horjeedaan wadaska aamusan oo cool u degan runta markaan idin sheego dadka taageersan madaxweynaha iyo dadka taageersan ra'iisul wasaaraha waa dad u buka oo u baahi qaba nabad iyo nolol bay doonayaan qof kasta oo nabad iyo nolol doonayaan madaxweynaha uu doonayo ra'iisul wasaaraha uu doonayo siyaasadooda caalamka waan aragnay maanta halka sano ee ay dawladdu jirto bil walba ama 2 bilood oo kasta caalamka sharaf ayaan ka soo hoynaa ka soo bilow ilaa maalintii la doortay madaxweynaha ilaa maanta maalin walba wax caalamku uu soo fiiriyo mooyaan wax kale oo Soomaaliya hoos sharafteeda u dhigaya ma aysan sameyn laakiin sanabadiyo nololeed ma sheegaan waxaas ma sheegaan ma ka hadlaan way daboolayaan waxaan maqli jiray habar dhali weeda aleela ku waalatay markaad maanta tiraahdo ma sha Allah
madaxweynaha Soomaaliya dhexdhexaad wuxuu ka noqday dalalka khaliijka wuxuuna diiday lacag 80 milyan oo dollar qalbi dhagax buu dhiibay haye maanta waxaa la laaluushay waxay dawladdu joojisay in la qaato berberada ka deediyo way ka hadasho maya qalbi dhagax buu dhiibay ciidanka Soomaaliya maanta waxay iska diideen laaluush 10 milyan oo dollar ayay ka qabteen airportka laaluushna way diideen qalbi dhagax buu dhiibay waxaan maqli jiray abar dhali weeda aleela ku waalad qalbi dhagax waxa dhiibay waa nabadiyo nolol diida farmaajana maaha khayrana maaha farmaajo khayra waa kuwa dalka u soo halgamay weeyaan sharaftiisa kor u qaaday weeyaan Afrika maanta waan ka muuqanaynaa maalin dhow laakiin se dadka sharaftooda iyo karaamadooda ku jiiday dhulka aamina muuse weheliya ugu horeysan waxaan leeyahay wali bilaadanku wuu qaldamaa kuguma fogaanayo bilaadanku wuu qaldamaa qof bilaadan oo aan qalad ka dhicin ma jiro wuuna ka noqon karaa qof kasta bilaadan qaldama ilaahina wuu qofur raxiim bilaadanka Soomaaliduna waa dad qalbi xaaran oo ka cafinayaan marka qofku waxa fiican markuu qaldamo inuu qaladkiisa ka soo noqdo cali xaraarina waxaan leeyahay kaftankaaga dad badan baa jecel runtii oo ku taxnaa oo daawan jiray laakiin maanta wallahi waxa kugu dhici doonta cidina kaftankaaga ma daawanayso cidna wax ma gudbin karaysid waayo wadada aad ku socotaa wadadii aamina muuse weheliyo waa aniga BBC u soo shaqeeyay khayro aniga isi lacag aan kugu amaano maya markuu ku yirina wad caayaysaa wax soconaya maaha taasi bilaadanku maanta indhahiisa iyo dhigiisuba furan wax ka qarsoonina ma jiran marka iska jooji adigana waxaan leeyahay bartaa ku jooji haddaadan bartaa ku joojin sharaftaadi dhulka ay ku dhacday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha soo noqonaya wada shaqeyntooda in badan waxaa lagu soo celceliyaa madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu way wada shaqeynayaan ama bari ka maalin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ana taageerayso bari hadii la rida ka waran lama ridayo safarta sanana way isla dhamaysanayaan cidii la shaqeyn weyda oo siyaasadooda ku shaqeyn weydana wadada ku qulqul weeyaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dib ku celinaya waxay galeen ballan iyo axdi maalintii uu soo doortay ra'iisul wasaaraha ballan iyo axdiga ay kala qaateen dad baa waxay leeyihiin malaha waxa la yiri aan wada shaqeyno heshiiskeenaas aan ku wada shaqeyno dad wada isfahma aan noqono bilaadanku waa carab iyo labadanba isku dhow oo way isqaniina bilaadanku khasab way isku dhacayaan dad waxay aaminsan sanadka iyo dhowrka bilood ay jireen inaanay hal maalin isku dhacin waa isku dhaceen ana idin sheegaya waa isku dhaceen bilaadanku waa isku dhacaa laakiinse maxaa hor yaala ballan iyo axdi iyo warqad qoran baa hortaala mar kasta oo khilaaf yar yimaado warqadoodii iyo heshiiskii ay kala saxeexdeen ayay dib ugu noqdaan maxaynu ku heshiinay maxaynu dadka ka ballan qaadnay qofku sidiisaba waxa fiican inuu ballanta ilaaliyo qof kasto iimaan lena waa inuu ballanta ilaaliyo marka waxay sameeyeen oo kaleeto maalin walba ra'iisul wasaaruhu marka uu soo kaco xafiiskiisa oo saa uga soo baxo shaqada uu galayo 8 subaxnimo wuxuu istaagaa xafiiska madaxweynaha oo uusan la kulmin ra'iisul wasaaru talaabo ma qaado ma booqdo wasaarad ma fiiriyo meel kale sidaas uu aroortii uga soo baxo xafiiskiisa wuxuu tagaa xafiiska madaxweyne maxaa maanta inoo horyaala dad sidaa u wada shaqeynaya micnaheedu waxay tahay teamwork ka waran haddii ra'iisul wasaaruhu aroortii uu dhinaciisa u fooftago madaxweynuhuna dhinaciisa u fooftago wada shaqeyn ma jirto heshiis waa la yahay laakiin wada shaqeyn ma jirto heshiisku marka kaliya ma aha aan ku heshiino inaynan iskhilaafin maya aroortii ra'iisul wasaaruhu markuu sidaa uga soo kaco xafiiskiisa waa inuu tagaa xafiiska madaxweynaha waa inuu weydiiyo maxaa maanta ku qorshaysan aniga waxaan iyo waxaan ay horyaala adigana waxaan iyo waxaan ku horyaala adigu waa inaad qaybta qaadataa aniguna waa inaan qaybta qaataa hebel waa in maanta la wacaa dalkaas waa in maanta la hadlaa dalka waa in maanta hebel loo diraa dalka waa in hebel la hadlaa marka team wada shaqeyn iyo wada jir يعني waxyaabaha shaqadoodu ay u noqotay hal wado oo lagu daba tukan karo qof kastana uu fahmi karo oo uu la shaqeyn karo nagu sababtay annaga inaan taageerno habeen iyo maalin aanu taagnaano waxa kamid ah laba qof oo sida ugu shaqeynaya dalkooda mushaaraadkooda ku bixinaya dadkooda qofkii dhibaataysan madaxweynuhu waa kii 100 qof oo dhibaataysan xaalad caafimaad mushaarkiisa ku geynaya dhakhtar ra'iisul wasaaruhuna waa kii 100 arday oo iska bixin kari waayay mushaaraadkiisa iska bixin kari waayay fiigii iskuulka isagu uu kaga bixiyay mushaarkiisa idinkana waxaad soo taagan tihiin
madaxweynuhu waa corruptionist ra'iisul wasaaruhu waa sidan dalbay iibsanayaan gas bay waxay ugu badan ee ra'iisul wasaaraha aad ku eedeysaan wax kale ma waxa weeyaan some oil and gas buu shaqeeyaa yes wuu shaqeeyaa some oil and gas wuxuu ugu shaqeeyaa isagu wuxuu ahaa qof shaqeysta oo ka madax bannaan Soomaaliya some oil and gas markuu shaqeynayay 2 milyan oo dollar oo share ah ayuu ka tanaasulay maalintii loo doortay ra'iisul wasaaraha some oil and gas waxay tiri 2 milyan oo dollar haddaad doonayso waa inaad ka sii mid ahaato shirkadeena shirkadii markii dalkiisa inuu u shaqeeyo marka iyo inuu 2 milyan dollar uu qaato waxa kala qiimo badnaatay inuu dalkiisa u shaqeeyo habeenkii ma seexdo maalinkiina waa taagan yahay madaxweynahana sidaas la mid ah ka taali maxaad uga abaal gudaan marka idinku cay habaar nacayb xumaan abaal malihidin nabadiyo nolol diidow abaal malihidin waxaadna tihiin dad wadadii shaydaan ku jeexay sidaa u sii haya wadadii shaydaan ku jeexay dadka nabad iyo nolol waxaan rabaa marka barnaamijkan inay sheer gareeyaan nabad iyo nolol ummadda Soomaaliyeed maanta hadda halkaas balbari baan idin soo qori doonaa nabad iyo nolol diid nabad iyo nolol iyo nabad iyo nolol diid waa arki doonaa inta badata isla markiiba waxaad arkaysaa yani nabad iyo nolol diid waxay noqdeen shaydaan waswasay iyo in yaro amarkiisa qaadatay dadka mararka qaarkood iyadoo qaybta xumin sareyso ayaa waxay ku dhacaan shabaqyada shaydaan waswasay aamina muuse wehelay iyadoo qaybta xumin sareyso wanaagay dadka qaar marba qaybta xumin kor martaa marka iyadoo qaybtii xumeyd sareyso ayaa waxay hal mar aaday groupkii shaydaan waswasay laakiin se wali tool waxaan leenahay oo ku furan tahay wadada toobada wali ku furan waxaan rabaa kale inaan u hambaliyeeyo ciidanka Soomaaliyeed mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad ayaan u hambaliyeynayaa waxaan leeyahay shaqada wanaagsan ay qabatay waxa horta mudnaanteeda iyo hambaliyeeda koobaad iskale madaxweynaha waxa mudnaanteeda iyo hambaliyeeda labaad iskale Turkiga inta ka bacdina waxa iskale taliyaasha ciidanka nisa ayaa iskale marka waxaan idin sheegayaa hadii aysan ciidankaasi haysanin moraal hadii aysan haysanin ballanqaad hadii aysan haysanin niyad dhis iyo barbar istaaga madaxweynaha ma aysan sameeyeen waxa ay maanta sameeyeen ma aysan sameeyeen marka hambaliyada koobaad madaxweynaha ayaa iskale talabaadna waxa iskale ciidanka nisana waxaan mar walba aan ku celcelinayaa mar kasta horta account-ka ciidanku waa ku jira Facebook qof kasto inaga midna wuu ogyahay wuu arkaa qof kasto inaga midna wuu ogyahay wuu arkaa si kasta oo sahlan baad ugu diri kartaa mobile baad ka diri kartaa xawaalad baad ka diri kartaa qof kasta oo inaga mida waa hadii aad $20 bil walba ku darsato hadii aad $10 ku darsato hadii aad $5 ku darsato waxaad ka mid tahay qof u halgamay dalkiisa ayaad ka mid tahay adduunka iyo aakhiro labadaba waad ku faa'iideysaa qof kasta oo inaga mida ma uusan waayin qof kasta oo awoodi karaya qof kasta oo shaqo haysta wuu awoodi karaya ha ku diro account-ka taakulaynta ciidanka dhowr jeer horaan soo share gareeyay haddana waan idin ku celin doonaa intiina hadda ku jirta $10 haddaad dirtaan waxay u noqon doontaa mushahar intaas oo askarta waxa ay qabatay wax caadi ama ah adduunyada dhan ayaa ka faaloonaysa sidee bay ku dhacday lacagta intaas la eg ciidan masaakiin oo Afrikaan oo dalkiisu u burbursanaa 30 sano ku dhawaad in lacagta inta leeg diidaan laakiin se sharaf iyo karaamo ay noo tahay aad iyo aadna way ugu mahadsan yihiin ciidankeena ilaahay ha shafro ilaahay ha karaameeyo ilaahay ummadda karaamadeedii ha u soo celiyo aamiin aad iyo aad baan idin salaamay inaan ku daaho uma aanan soo gelin waxaan rabaa wax yar inaan ka iraahdo qolkii qooto intaydan ka wada bixin qolkii qooto Allah maalin walba waxbaad ogaanaysaa waan idin sheegay waad aragteen baan u maleynayaa dhamaantiin intiina page-ka ku jirta u badantiin barnaamijka ka diyaariyay waan aragtay qaybta ugu sarreysa saaran yahay qolkaasi waxa saaxiib la ahaa ama member ka ahaa 500,000 oo qof dadka badan 500,000 ee qof yani waa guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee isticmaala Facebook intooda badani way ku jireen siday member uga noqdeen lama garanayo I believe marka in qaab ay isticmaaleen uu jiro oo dadka hal mar member laga wada dhigayo oo dad aanan member ka noqon ama aan join noqon ay isku jiraan waxa marka ogaaday Muuse Bixiyo groupkiisu inay group ka sameysteen groupka Muuse Bixi u jibeysan la yiraahdo jeegaanta
before wallahi waxaan ku fakarayay qofka iskale page kan ama group kan sameeyay qof Soomaali amaha amxaar weeyaan isdahay waxaan islahaa ama waa amxaar Soomaaliya ku dhex jiro oo af Soomaaligiisu biyur yahay oo af Soomaali fiican bartay ama waa qof amxaaradu galatay laakiin si dubka Soomaali ka ah wallahi page ka wad la aragteen waxa lagu qorayna waad aragteen markaan ka hadlay umada uga digay ciyaal Muusabixi baa safii soo galay page-kayga maxaad ka rabtaa boqolaal message ba hal mar soo dhacay cajiib aniga waan qaadan waaye war page-ka Muusabixi baa iskale mise Muusa ba arminka ahaa wallahi waan yaabay inaan been idin sheegaynin xitaa commentiga waad ka fiirin kartaan qaybtiisa message-ka inta la ii soo diray ee group Muusabixi ah ama group Cheegana tira iyo xadi ma laha wad yaabaysaa marka waan qaadan kari waayay qabaa'ilada Soomaaliyeed sida loogu aflagaadeynay sida madaxa la isugu gelinay sida la isugu habaaray sida loogu habaarayay Muqdisho sida qaraxyada Soomaali loogu ducaynay waxa soo dhan page-kii lagu soo qorayay ama groupkii lagu soo qorayay ciyaal Muusabixi baa gacanta ku hayay idinkana waad ku jirtaano waad ka comment gareynaysaan waxa rabtaan baad sheegaysaan qabiilka doontaan baad caayisaan waxa meesha ku qoraa wax maba aha qabiilada aad moodaysaan idinkum baa sida fooda la isku gelinaya wax walba inaad ka fiirsato ayaa fiican waxa aad arkaysana sidaad u arkaysan maahay waa si kale ogow hal la iska ilaaliyo gruubada noocaas oo kala ama maxaara ha lahaato ama ajnabi ha lahaado ama dalay ha lahaato gruubyada noocaas oo kala ee Soomaali sidan iyo reer hebel sidan iyo xitaa gruubyo qarba qabiilo magacyadooda leh laakiin se been aan qabiiladaasi lahayn oo lagu caaya intuu qabiil magaciisa qaato qabiil kale caayo hadhow ta looranaya qabiil hebel buu necab yahay qabiiladu mal raba inta dadka loogu soo celiyo marka hal la iska ilaaliyo group qooto iyo group jinni oo dhan xaraamiin baa leh page-kaygaadna ku arkaysaan qaabka riboodka looga bixiyo waa qaab aad u fudud 10 qof oo kaliya haday ka bixisana hawada ayuu ka baxaya marka waxyaabaha sunta noocaasa ee dadka ku dhex jirta hal la iska saaro inta soo barbay maanta inaan idin la wadaago nabad iyo nolol waxaan rabaa hal dardaarana inaan siiyo nabad iyo nolol waxaan doonayaa hal dardaarana inaan siiyo halka dardaaranka ah aan siinaya wuxuu yahay dawladdan jilicsan ee cid waliba ay soo handadayso ee aad arkaysaan wax inaga qarsoonimo walaalayaal maanta ma jirto wax inaga qarsooni maanta ma jirto wax walba indhaheena shanaan ku aragnaa inaga ayaa la inagu fiirinayaa damiirkeena iyo dadnimadeena iyo sidaan uga falcelino iyo sidaan u aragno lacagaha la inagu farqayna waad arkaysaan dadkeena gudaha ku jiray ee iibsana waad arkaysaan dadkeena la wada duufsanayana waad arkaysaan kuweeni ugu roona aan isdhahaynay aqli iyo waxba ku dambeeyay garasho iyo garaad ee aan islahayn kuwani dawladihii dhexena waxbay ka soo ahaayeen ama xoogaa waxay haystaan magac iyo maamuus bay dadka ku dhex leeyihiin ama dawladii iyo canshuurtii Soomaali laga qaadi jiray baa wax lagu soo barayo iskuuladii bay ka soo baxeen la foolo iyo Soomaaliya inay maanta sidaas u hadlayaan oo ay fikradii shaydaan ugu suusay ku shaqeynayaan horta waa ayaan daro laakiin dadkii Soomaaliyeed damiirkoodu ma uusan wada dhiman dadkii Soomaaliyeed damiirkoodu ma uusan wada dhiman waa nool yahay waa qoyanahay waana aragnaa cadawgeena wadada uu noo soo marayo iyo lacagaha uu nagu bixinayo iyo sida uu doonayo inuu dhulka noola dhaco waan arkaynaa laakiin ha u malaynin qof wax soo ahaa ama qof baa magac lahaa ama qof baa meel ka hadli jiray baa waxa diiday ana waa diidaya taa iska ilaaba qofkan shaydaanku wuu qaadan karaa waxa ilaahay quraankiisa ku sheegay qof soo sameynaya amal wanaagsan maalintii uu dhimanayayna ilaahay wadada uu ka hufiyay marka bila aadanku waa daciif shaydaan baana qayb ka marka ha ku daysanina dadka noocaasa hana la ficiltaminina hana la caytaminina kaliya runta u sheega runta oo sheega runta markaad u sheegtaan qofku ilaahayna wuu soo hadeyn karaa haduu sida ku baxayana ilaahay naga dhex saarban leenahay oo ummadda ha dhaafiyo waa inta soo kaliya waxaan sameyn karnaa annaga mar kale ayaan ku celinayaa dadkina gadaal ka soo biiray dadku markay maqleen shaydaan usuusay warkiisa oo ay yiraahdeen malaha dadkan amaanaya dawladda lacag baa la siiyaa waxay iska wada xaadiriyeen xafiiskii ra'iisul wasaaraha weyna ku soo hungoobeen danacay bay bilaabeen حتى تكسو هنقودي الحمد لله رب العالمين هرت إلهي بان كم مجنق لدولتنا إن الله عقو قادنا أنا جا إسكه الله شخصيا أنا وقف كل مسؤول كميه أنا جا أيا إسكه الله أنا جا أكترسن دولة الصومالية وشقينية دولة الصومالية أنا وشقينية أو مشهرئة
iigu gashan tahay diiwaanka bil walba inaan mushaar qaato ayaan lacag la-aan ku shaqaynayay maantana aniga ayaa shaqaysta aniga ayayna isaaran tahay mas-uuliyada inaan anigu ugu daro laakiin dadka caydha yurub intay waxba tari weyday xafiiska ra-iisul wasaaraha lacagta u doontay ku soo hungoobay maanta inay yidhaahdaan ciyaal baa lacag lagu siiyaa waxaan leenahay afwaajan been baad sheegaysaan afkuna ha idin qalloocdo ilaahayna wuuna ogyahay annagana waan is ognahay inaan shilan qaada afka allah idin qalloociyo aad baan idin salaamaya dhammaantiin